waxa uu kormeerayaa xaaladda bukaanadii ku waxyeeloobay qaraxyadii Zoobe-2 oo hadda lagu dabiibayo qaybtood halkan oo ah isbitaalka Kalkaal. kormeerid iyo indhayn kadib waxa uu hadda hubinayaa caafimaadkiisa si uu dhiig ugu shubo bukaanada u baahan dhiiga. baaritaan kadib waxa uu shubayaa dhiigiisa si loogu dhibciyo bukaanada u baahi qaba. agaasimaha guud ee isbitaalka Kalkaal Dr. Suleymaan Cabdullaahi Maxamed ayaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Hirshabelle mudane Cabdishakuur Shaashaa uga waramay xaaladda bukaanada. runtii wasiirku wuxuu u yimid isbitaalka Kalkaal danqashada oo ka danqaday waxyeeladii soo gaartay qaraxii Zoobe bulshada Soomaaliyeed. sidoo kale isbitaalka Kalkaal waxqabadkii uu u sameeyay dad ka mid ah dadkii waxyeeladii uu soo gaaray ayuu wasiirku wuxuu u imaaday inuu u sameeyo dhiirigelin bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan. sidoo kalena oo ku yabooho dhiiggiisa oo ka mid ah dhiigaha aad loogu baahan yahay ama marka laga hadlayo caafimaadka dhiigga ku yar helitaankiisa. runtii aadaan uga mahadcelinayaa wasiirka garab istaagiisa iyo ka danqashadiisa ku aadan waxyeeladii soo gaartay bukaanadii Soomaaliyeed ama dadyoogii Soomaaliyeed. waxaan leenahay ilaahay ajri xasanaad aan la soo koobi karin wasiirka kaasiyo waana kaaga mahadcelinaynaa garab istaaga bulshada aa u muujisay. Kalkaalna waxay diyaar u tahay hadduu ilaahay raado in bulshada qof kastoo garab istaag u muujinayo inay caawiso. waana uga mahadcelinaynaa waqtiga iyo juhdiga oo noo soo horay. wasiir ku-xigeenka warfaafinta Hirshabelle mudane Cabdishakuur Shaashaa ayaa diray baaq 3 jaanible ah. runtii waxaan kormeeray qaybaha kala duwan ee bukaanada iyo qaybta dhiigga oo runtii shaqo adag ay ka socotay. waxaan rabaa ugu horreyn inaan halkan uga mahadceliyo Allah subxaanahu wa tacaala oo maamulka iyo milkiilayaasha isbitaalkan ku dhaliyay in isbitaalkan marka hore ay ka hirgeliyaan magaalada Muqdisho. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhaqaatiirta iyo howlwadeennada isbitaalka oo runtii muujiyey gurmad iyo u damqasho. waxaa layla wadaagay in 36 qof oo kamida dadkii qaraxa uu saameeyay halkan la keenay lagu dabiibay. intoodii badanna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caafimaad ugu daray kuwana hadda lala tacaalayo. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego walaalayaal inaad dadkan u gurmataan oo aad u damqataan oo aad u istaagtaan. waxaan ku helaynaa ajar ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa. waxaan rabaa in la caawiyo oo la garab istaago dadka dhaawacyada iyo dadka dhintay qoysaska ay ka tageen. ilaa shalay waxaan diiwaan gelinayay dad badan oo dhacdadan aad u saameysay. dadka la ii sheegay waxaa ka mid ahaa ruux ama aabe ka tagay 16 caruura oo uu korinayo runtii oo dee sanad kale waaweyn. waana garan kartaa xanuunka iyo dhibaatada ay leedahay. haddana dhowrxaas laga kala dhalay. sidoo kalena way jiraan dad kale oo ka dhibaato badan. waxaan rabaa marka gurmadka in 3 qayb loo qaado. qayb waa midan isbitaalada dadka ku jira oo dhaqaatiirta laga rabo oo dadka dhiigga shubaya laga rabo oo qof walba Soomaaliyeed laga rabo. qaybta labaadna waa in gurmad loo sameeyaa dadka qoysaskoodii ay saameysay dhibaatada ee qaraxan oo caruurtoodii banaanka ay yaalaan oo hooyooyinkoodii banaanka ay yaalaan ee agoontoobay ee aan waxba haysan. sababtoo ah rag baa subax u soo kacayay u kala hayay irsaaq u doonayay way baxeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada firdawsa ka waraabiyo. laakiin dadkaas waxay u baahan yihiin in la garab istaago. dowladda Soomaaliya waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkeeda ku aadan arrintan. laakiin in gurmad loo fidiyo dadkan oo dowladda iyo shacabka ay u wada istaagaan waa waxaan laga maarmaynin. kii dhiig shubi kara ha shubo, kii 100 kun dhiibi kara ha dhiibo, kii $1 dhiibi kara ha dhiibo, kii يعني dadkan ugu gargaari kara ugu gargaaro. warbaahinta Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay soo bandhigaan dhacdooyinka dadban ee aan la arkin gaar ahaan masiibadaasi qoysaskiisa goolida ay u taabatay si ay gurmad u helaan. wanaagsan maamulka isbitaalka Kalkaal ummadan kuwa dhintana Allah u naxariisto kuwa bukaanada Allah caafimaad nasiib ila tawfiiq. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. waxaa soconaya dadaallo lagu doonayo
in lagu garab istaago shacabkii ku waxyeeloobay weerarkii Zoobe-2. Wasiir Shaashaana waxa uu ka mid yahay madaxdii dadaalkaasi muujisay. Cumar Guxurbaynta City, Muqdisho.